Hubka wax gumaaday nuclear-ku waa aaladda ugu halista badan ee bini'aadamku farsameeyay, taasoo dhaqaale badan ku baxo samaysankeeda. Waa aalad qarxada oo halkii xaba maanta haddii la qarxiyo uu dili karo kumanaan iyo malaayiin ruux. Waxa uu wax u dilaa dhowr qaab oo ugu horeeyo qaraxa dhaca. Kadib hirka qaraxaasi ka dhasha ayaa inta badan wax gumaada. Kadib sunta kiimikadaas ee hirku masaafada fog gaarsiiyo ayaa muddo badan siilaysa noolayaasha ka badbaada qaraxa nuclear-ka. Dalalka awoodahan xooggan dhaqaale iyo dad ayaa waqti badan ku bixiya samaysashada aaladdaas oo ujeedku yahay in dal kasta iskaga difaaco dalka uu cadow u arko. Waa aalad dalkii haysta ay yar tahay in dal weerar ku qaado cabsi laga qabo hubkaas dartiis. 9 dal oo caalamka dhaca ayaa maanta haysta hubka nuclear-ka, kuwaas oo u samaystay in midkiiba kan kale iskaga difaaco. Dalalkaasi oo kala ah Ruushka, Mareykanka, Shiinaha, Faransiiska, UK, Bakistaan, Hindiya, Israa'iil iyo Waqooyi Kooriya. Mareykanka iyo Ruushka ayaa haysta 90% hubka nuclear-ka ah ee caalamka yaal, kuwaas oo midkiiba haysta wax ka badan 6,000 oo madax oo nuclear ah, halka 10% ay haystaan 7 dal ee soo haray. Waqooyiga Kooriya ayaa noqotay dalkii ugu dambeeyay ee nuclear samaystay. Israa'iil oo carabta dagaal kala dhaxeeyay 60maadkii ayay samaystay iyadana. Hindiya ayaa 70meeyadii ku dhawaaqday inay tahay awood ku hubeysan hubka nuclear-ka, taasoo halis iyo cabsi badan ku abuurtay dalka dagaalka kala dhaxeeya ee Bakistaan, taasoo ku kaliftay Bakistaan in hubka si qarsoodi ah ku samaysato. Waxayna ku dhawaaqday dhammaadkii 90meeyadii inay tahay awood nuclear haysata, taasoo caalamku la fajacay sida ay ku samaysatay. Mareykanka waxaa dhaqaalahaan uga baxay samaysashada hubkaas dhaqaale 10 trilyan ka badan. In ka badan 60,000 oo madax oo nuclear ah ayuu Mareykanku fadhiisiyay oo burburiyay, taasoo ku soo koobay kaliya 6,000 oo xabo. Wadamada NATO ayaa sharci ahaan dhigaya in dalalka xubnaha ka ah ee haysta hubkaas ay la wadaagi karaan dalalka kale ee aan haysanin ee NATO ah, taasoo ka dhigan in Mareykanka nuclear-kiisu uu yaalo dalalka Turkiga, Jarmalka iyo Poland. Cilmi baarayaashu waxay qabaan dagaal nuclear ah oo dunida ka dhaca inuu soo gabagabeyn karo jiritaanka aadamaha. Dadka ku nafwaayo hubkaas markii laga yimaado dadka ka badbaado ayaa waxaa dilayo abaar daran oo uu sababi karo, maadaama dhaqaalaha dunida uu burburayo, radioactivity-giisuna sababayo abaartaasi oo dhirta sumoobayso, inta kale ee nool ahna uu laanayo. Waa sababta keentay in dalalka haysta xeerar adag dhigtaan